صلى الله عليه وسلم. saddexda qof ee ugu horeysa uu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam ee naarta lagu tuuri doonana waa saddexdee waa caalim waa taajir sakhi ahaa iyo nin mujaahid ahaayoo loo maleynayay inuu diin u dhintay saddex camal oo waaweyn bay la imanayaan kan waa mujaahid buu ahaa kana wuxuu ahaa caalim buu ahaa ummaddu cilmiga barayo qaari buu ahaa kana wuxuu ahaa maaragtaane sakhi maalqabeen ayuu ahaayo xoolihiisa u bixin jiray saddexda camal ay la yimaadeen ilaahay hortii saddexda camalba waxaa ku ladhnaa maaragtaane shirki baa ku ladhnaa deedna markaasa ilaahay odhanayaa aduu waad u dhimatay waad soo dhimatay laakiin aniga dartay umaad soo dhimane in lagaa yidhaahdo hebel waa nin dagaalyahan ayaad u soo dhimatay waana lagu yidhi adiguna qaari baad ahayd qur-aan akhris fiican ama waacid ummadda wacdiye ayaad ahayd oo dadku ay hadalkiisa dhegaystaan wacdiga markaad jeedinayseed ummadda wax u sheegaysa ama aad wax baraysidna aniga dartay umaad barayne hebel waa nin caynkaasoo ummadda wax u sheego carab fasiixi ayaa hal lagula yidhahdaa islahayd kanna waxaa la odhanayaa adiguna nin maalka bixiyaad ahayd oo meel kastoo khayra xoolaha waad ku bixinaysay hadday masaajid tahay hadday madaaris tahay hadday aytaam tahay laakiin waxaad u bixinaysa waa hebel waa sakhi hal lagu yidhaahdo saddexdiinnaasi waa laynii yidhi adduunka dusheediiye agtayda waxaad ku leedihiin waa naarta ku tuura la odhan doonaa xadiidka abaa hurayra radia allaahu canhu markuu sheegi jiray uu ooyi jiray uu kici jiray uu dhici jiray waa la kicin jiray uu ooyi jiray uu kici jiray markay naftu ay ka bixi inay ka baxda halis u gaadho ayuu xadiidka nebigu ka maqlay uu sheegi jiray lilaahi waa inuu ahaada qofka muslimku waxaa dadka u qaban ilaahay dartii ugu qabo waa inaad ku doontaa camalkaaga aakhiro camalkaaga adduunyada ha ku doonin cabdillaahi ibnu mubaarak raxmatullaahi calayh ayaa lagu yidhi maninnaas dadi ayay yihiin noo sheeg markaasuu alculamaa dad haddaad i weydiiseen dad waxa weeyaan waa culammada waa dadka ilaahay cilmigiisa yaqaana waa dadka ilaahay yaqaana aakhirada yaqaana ee shareecadda islaamka yaqaana dadkaasuunbaa dada markaasaa lagu yidhi famanilmuluuk kuwa haddii aad dad ku sheegtay haddana boqorraduna ayay yihiin markaasaa yuu yidhi azuhaad waa dadka zaahidiinta ee adduunyada ka zaahiday ee adduunyada bedhbidhkayga waxa dul yaalla waxba aanan u arkayni markaasaa lagu yidhi ma tawaaducana bal noo sheeg tawaaduc muxuu yahay markaasaa lagu yidhi attakaburu cala alaqniyaa dadka hantiilayaasha oo agtaada aan waxba aad u arkin oo agtaada qiima aanan ku yeelan taasaa tawaaduc la yidhahdaa buu ku yidhi markaasaa lagu yidhi faman isufahaa dadka sufahaduna ayay yihiin maangaabka caqliga aan lahayn wuxuu yidhi alladii ya'kulu diina biddunyaa waa qofka magac diineed xambaarsan laakiin magacaa diineed haddana dadka adduunyo kaga doonaya wejigiisaa diineed adduunyada u isticmaalaya kaasaa safiiha buu yidhi fanuxsin dadka haddaan wax u qabanayno haddaan wax u sheegayno haddaan wax barayno haddaan ixsaan u samayno haddaan infaaqinayno waxay naga noqonaysaa waa ilaahay dartii waxaa kaluu ku yidhi ninkaasi inankiisa markuu la dardaarmaayey dhibaatada dadku ay adiga kugu sameeyaanna ha xasuusan buu ka yidhi waxaad noqotaa qof saliimu sadri qalbi fiican noqo qalbigaaga waa inuu ahaadaa nadiif muuminka qalbigiisu غل يا حسد يا بغض وعينه كهذا صليم. أبي أمامة رضي الله عنه أيام مكة يمدي هو إسلام مركب يا رسول الله طول كيدين تانجا غارسيو وهي غارسيو كيد يكو حوله جي مركب ورامين يبو نحمدي مركب سوق بنيجي شريعة الإسلام مركب سيدا يا سودي وعنا سوق علينا قالوا دين تاني أتكبحلي وحنا والله الدين مركو ربو كما جرينه حتى أنا نقول دين قالوا مسلم بانه نكون إسلام والديبان إسانه مركز ماي دين تاني والكب أحد كل هذا ماي بيها ورابيننا بعدها سنين بالليل dadkii xoolaha soo aruurinayo dhan intuu dixdi u joogsaday ayu kolba qoladii xoolaha keentay ee dixda soo galisaba islaamnimada ayuu bandhigaa biyihii baa loo diiday baadkii baa loo diiday bakti ay cunayeen bay ugu yeedheen kaalana la cun bay ku yidhahdeen markaasuu jiitu min cindi man yuxarimu hada calaykum waxaan ka ag socdaa oo nagtiisa ka yimiday kuma aragtaane xarimaya waxa xurimat calaykum almaytatu ku aqriya ayada qur-aanka markaas waan haraaday biyo waraabiya ay ku raabin meena bay ku yiraahday ilaa oon adu dhimatay mooyaane soo diinteedii kama bixin kaaji oon adu dhimatay wayna biyo kuma waraabineen
sidoo maalintii dhan u jawreynayay uu iimaaniyaadka aakhirada uu diinta kala hadlaayay ayuu hadeetole u dhacay baa layidhi cimaamadaydii baa madaxa ku duuduubtay buu yidhi waan iska dhacay hadeetole ramalkii ciiddii iyo bataaxii kullaba ku dul dhacay walaaliya kolkaan gamcay waxaa ku manaamay buu yidhi shaksi unbaa ii keena qaruurad sharaabka ku jira udgoonkiisa macaankiisa weligay adduunkaana ku arkin unbaa intoo barida la ii fadhiisiye la ii dhiibay buu yidhi waa manaam deedna markaan cabbay sharaabkii ee dhammeeyey ayaan hurdadii ka soo kacay buu yidhi wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi saxaabiga abi umaama maalintaasaa oon haraad iigu dambaysay buu yidhi intaan adduunyada ku noolaa قاضي الحاجات وايو مسلم كجديد كا اي زمك النبي مركب الهي غرغاركيس ارك جيرو نصرت الهي ارك جيري انكم maxaan gargaarka diinta warkalaanay مسلم كجديد ka shalay soo islaamay ayaa manfaacada diinta markaa ay arkayay inagoo muslim qadiima maxaa manfaacada diinta warkalaanay isma dhawi sida uu qaateen uma qaadan inagu hadduu islaamay hadduu nabiga ku leeyahay tolkayma diinta gaarsiin waayaha gaarsiin buu ka yidhi shaqo dhabay qabteen deedna ilaahay xaajadoodii buu daboolay bilaa asbaab maalintiibaa oon igu dambaysay buu adduunyada ku noolaa maba haraadin buhi khalaas istikfaar baa ilaahay yidhi wastakfir illaaha ina allaha kaana gafuuran raxiima istikfaarta ha ka tegin baa lagaa yidhi ilaaha aad baryaysaa ee mar walba aad u noqonaysaa xaggiisa waa alla dhaafid badan oo naxariis badan weeyaan adcuunii astajib lakum baa ilaahay yidhi iboydiista anigoo ibarya aniguna waan inaga ajiibayaa ducadiinne lain shakartum la asiidannakum haddaad nicamtayda iigu shugridaan baa ilaahay yidhi aniguna waan inii biirinayaa dembiilaa taho mar walba dembi uu kaa soo dhacayaa markaa istikfaarta ha ka tegin mar walba waxaa tahay mid baahan ee baahidaada ilaahay u sheegoo ilaahay bari oo saacadaha ducada la aqbalee ducada ilaahay aqbalo ee axaadiista nebigeenna calayhi salaatu wasalaam nebigu uu noogu sheegay xilligaa ilaahay bari oo baahidaada ilaahay u sheego salaadda markii laga baxa ducada waa la aqbalaa roobku markuu da'ayo ducada waa la aqbalaa maalinta jumcada saacata alijaaba ku jirta habeen walba waxauu nebigu noo sheegay inay ku jirto saacaad ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ducada aqbalayo uu leeyahay ayaa waxay weyddiisanaya han siiye ayaa toobadkeena toobadda han ka aqbale ayaa maaragtaanee dembidhaaf doonay dembigiisa han dhaafe saacadaha kacoo ilaahay la munaajooyo baahidaada ilaahay u sheego